sida dhaladaas ay u caddahay biyahana ku jira ay nadiifka u yihiin bay noloshaadii markii hore nadiif u ahayd. laakiin maxaa isbedelay? noloshaadii waxaa ku soo biiray xasadka, waxaa ku soo biiray qalbi jabiye, qof noloshaada qalbiga kaa jebinaya, waxaa ku soo biiray qof muuqaalka aad leedahay kuu ogoleen, waxaa kaloo ku soo biiray waqtiga. noloshaadii quruxda badan سلامي ملول بقى دنيا كجوكتد وصاحبك أما ولالك شاهد بيساني فيديو كان أديك أيام كوجو طلقاي وفيديو عن نفتها كدير كليني أنت أنا متصالها وجود الجلين وحن كحسوسين يا واجي أينو يرين وحن الدبيا أما وحن هو نكسن أما وح أينو نعبنا هاي وينو كلا جرتشرني قلبي جينا يمسكح دينو وحي أهايين كون نظيف حسد كمين النقانين عضد مين سكرانين waxyaabaha xunxunna maynu garanayn waayo maskaxdeena iyo qalbigeenu waxay ahaayeen kuwa nadiif ah daacadna waynu ahayn laakiin maxaa isbedelay noloshu waa wajiyo badan tahay waxa wax bedelayna waa waqtiga iyo dadka xilliga qaangaarka kadib waxaa la kulmaysaa carqaladooyin aad u tiro badan ogaanshaha carqaladahaasi waxa ay kuu sahlaysaa in wadadaadii aad heshid haddaba tusaale waxaan usoo qaadanayaa dhaladan biyo ayaa ku jira waagii aynu yareen sida biyahan ay nadiifka u yihiin buu qalbigeena iyo maskaxdeenaba nadiif u ahaayeen haddaba maxaa isbedelay waxaa isbedelay markii aynu soo qaangaarnay waqti ayaa nagu soo biiray waqtigaasi oo aanan nagu samaynin meeshaan annaga u qalanay waxaa kaloo nagu soo biiray xasadkaasi oo noloshaada ku diidayaba horumarkeeda waxaa nagu soo biiray xugmiye oo aqoon aanan kuu lahayn laakiin iska kaa xugminayo qalad iyo sax waxa aad leedahabo waxaa kaloo nagu soo biiray xilliga qaangaarka kadib qalbi jabiye nolosheena quruxda badneed ee nadiifka ahayd waxa ay isku bedeshay mid midabo badan leh waana maanta sababta inaad go'aan qaado weysid mar walba aad damacdid inaad isdhiiri gelisid ama hore u dhaqaaq damacdidbo waxaa noloshaada ku jira afartaas mar walba aad dhaqaaq samaysidbo way ku walaaqayaan waxaadna noqonaysaa mid murugo iyo walaac iyo walwal la nool haddaba waxaan kula wadaagayaa qaabka ugu fudud aad noloshaada u maareey kartid dhibtuba waxa ay ka bilaabataa waqtiga isku day waqtiga inaad maareysid waqtigaaga inaad u isticmaashid wax muhiim naftaada u ah ku mashquulidda wax muhiim ku ah waxa ay kuu sahlaysaa waxyaabo badan oo kuu keeni lahaa walaac iyo walwal inuu kaa qabto waxa meesha ku jira qalbi jabiyaha kuu dambeeyo labadan kale la xisaabtan labada kale waa xasad iyo xukmiyaha waa kii aad horumarka ku gaari lahayd ha joogo laakiin xasadka iska saar qofka aad xasadnimo kala kulantid noloshaada boos ha uga baneen isku day inaad mar walbaba ula dhaqantid midaad adigu diidaysid waayo xasadka xal uma heli kartid haddaadan adigu diidin qalbi jabiyaha inuu qalbiga kaa jabiyo wax adiga ah sababta ma ahan ee waa wax uu kaga faa'iideysanayay waqtigaagii oo aadan maareynin waayo waqtiga marka aadan maareynin oo waqtiga aysan ku hagaagsanayn wuxuu ahaanayaa mid adiga maskaxda kaa mashquuliya qalbigana kaa jabiya laakiin maalinta aad waqtigaaga hagaajisid uu waayo xilli uu jaanis ku helo uu ogaado inaad naftaada ku mashquushay wuxuu ku dadaalayaa inuu ku wanaajiyo ama uu wanaagsanaanayo si wanaagsan ayuu kuula dhaqmayaa ama noloshaada uu ka dheeraanayaa hadduu ka dheeraadana dan kuuma bahabo
waxaa kuu soo haray xugmiye asoona aqoon kuu lahayn buu iska kaa xugminayaa. xukunka uu ku xugminaya ha ka xumaanin, waa mid adiga energy ku ah oo ku dhiirigelinaya. laakiin mar haddii aa inta hagaajisay waqtiga iyo xasadka iyo qalbi jabiyaha, xugmiyuhu wuxuu noqonayaa mid ku garab socda. garab socoshadaasna dan ayay kuu tahay, waayo mar walbaba haddii uu iska kaa xugmiyo oo qalad kuugu xugmiyo, energy ayay kuu noqonaysaa. waxaad ogaanaysaa inaad weli hore u socod leedahay. waxaan kaloo ku xasuusinayaa qofku hadduusan marnaba la kulmaynin wax carqalada, waa qof wax ka qaldan yihiin. qofku bini aadanka waa inuu carqalad la kulmi karaa, markaas ayuu ogaanayaa. mar haddaad carqalada iyo aad la kulmaysid, markaas ayaad ogaanaysaa bulshada inaad qiimo ku leedahay. nolosha inaad carqalad la kulantid waxaa sababaysa ka fikir duwanaanshaha aad ka fikir duwan tahay dadka. fikirkaaga hadduu dadka ka duwan yahay, ma aha dantooda inaad fiirisid, waa inaad fiirisaa fikirkaaga. assalaamu calaykum.